يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. quraanka laga shidaayay sixirka iyo jinka wuxuu sheegay xusay magacyo dad la garanayo oo loogu soo dhiibay baati misagaal wallahi way dilay anu meel dheer baad ka imiday kurkaan ka jiraya shantiina ma isa sheega haddaad rabtaan inaad nabad gashaan turku bukaay una soo duceyno faatixada la soo martaan ka baxaysan halkeed ka baxaysan wallahi oo billahi waa idin leenayaa haddaad sheeg weydaan in cabsi geliyay in loo caga jugleeyay inuu xashiish iyo khamri cabay dadku dambi dunuubta ka galay aabihii baa kamid ah oo hooyadii baa kamid ah oo qoyskiisa kamid ah oo qabiilkiisa kamid ah oo qarankiisa kamid ah waxa ugu weyn General Faisal Abdi Botan iyo arintii halkuu ku xidhnaa oo fartu ku fiiqayay beejkiisana la wareego adminka quraanku horta waa daawo ilaahayna maartay baan tala saaranayna inuu ilaahay noo aqbalo waxa weeyaan waxaan ku akhriyayaa 11 qul wallah 11 qul a'uudu bil falaq iyo 11 qul a'uudu bil nas iyo 11 aayad kursi taasaan ka dhiganayna hadii la yiraahdo maanta hadii la yiraahdo hadaan u baahna barina waxa weeyaan inta in ka badan ma ku akhriyna oo yaani aayadaha oo maartay xirsiidka laakiin maanta intaasaan ishaaradu intaas qabatay maanta intaasaan ku akhriyna waayo qul wallahu waa quraanka marka 3 jeer loo dhigo hal meel buu kamid yahay waa qul wallahu kaliya 3 jeer marka akhrido adoo 30 jeer akhriyo kamid النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الله لا إله إلا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم قبولك قبولك دي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ياتي ورياح ياتي يا sheegesh يا ممكن باتي مسقال والله وايد دلي أنا ما أقدر بعد كي مدي كوركان كجريان شنتين ما يسشيغا حتى تربطان إن نبض كشات هاي ما بعيسان مسواد دلا مدو شيغا مدو شيغا ورما بعيسان مسنفتا دي كسارة يا ورما نفتا دي كسارة يا شيغا هالكاد كبعيسان والله وبالله وايد لينا يا حداد شيغ ويدان هالكاد كبعيسان هالكاد كتبعتين ورا هالكاد كتبعتين هالكاد كتبعتين يا شيغا فرطة بدح تبعي هيا كبح بحزا هذا كبح عندنا halkii kala wadaago xaaladda guud wariye Cabdisalaam Germany oo shalayto aan ku soo booqanay magaalada Nairobi isla saaka subaxiina aan ka soo dejiyay magaalada aniga rag kale la socda sida Maxamed Bulshaawi
halkan oo aanu keenay shiikh runtii ilaahay khayr ha siiyo tuftiisa lagu raayay oo la mahadiyey shiikhaas ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo quraan buu saaray kulli muuqaalka waad ka daawan doontaa xaaladiisa quraanka markii quraan saarkiisa runtii dee muuqaalkiisa gudna waad ka arki doontaan iyo wixii ka dhex hadlayba dad baa ka dhex hadlay sida runtii inkastuu shiikhu uu xusay jinku ama sicirku dadka bini'aadamka waanu isku diraa wixiisana lamana rumaysto lamana beenaysto hase ahaatee sidii uu dee isagu markii quraanka laga shidaayey sixirka iyo jinka wuxuu sheegay xusay magacyo dad la garanayo oo loogu soo dhiibay runtii sixir baa ninka loo adeegsaday aniga hore bishii sanadkii hore 2023 bartankiisa ayaan hore u sheegay isagoo oo garowga jooga cilaaj baa la geeyey lagula tacaalay muddo waa tii la'aa kadibna waa laga hadliyey waxyaabo badan oo aan ka waraystay xaqiiqdu iga sheegay xilliyadu uu soo miiraabay ama caafimaadka qabay waxaa ka mid ah in uu in su-aasha ugu weyn ummadda shacabku ay u qaadan weyday liqi weyday waxaa ugu weyn generaal faysal cabdi bootaan iyo arrintii halkuu ku xidhnaa uu fartu ku fiiqayey arrintaas oo runtii aniga oo qoyskaas ka soo jeeda faysal cabdi bootaan aad aan uga xumaa laakiin si anigu xoogaan u ahaa inaan inanka caafimaadkiisu aanu caadi ahayn wax kalena ay wehelinayeen inankaas wuxuu ii sheegay inuu drugs la siiyey xilligaas waqti xaadirkaa meeshuu tegey in la cabsi geliyey in loo cagajugleeyey inuu xashiish iyo khamri cabbay qofku had markuu maandooriyaha isticmaalana ilaahiisa abuuray xaqa lagu caabudo ayuu dafiraa wax kale iska daayeen marka arrimaha isaga ayaan afkiisa markuu u dhammaado arrintaa cilaajku ayaynu ka waraysan doonaa faahfaahin uu ka bixiyo inuu bulshada hor yimaado ka raali geliyo xogta dhabtaa anigu ninka ii sheegayo oo xaqiiq ah inuu halkaas ka sheego waxaan kaloo doonayaa inuu wadaago page-kiisa ana la wareego adminka insha Allah markuu u dhamaado cilaajkuna isagoo ka tiinadaysan oo isagu soo ka tiinideeyay oo anagu aanu wehelino garba socono ayaan Hargeysa ku soo dejin doonaa cidii dad qarankiisa iyo ehelkiisa dadku dambi dunuubta ka galay aabihii baa ka mid ah oo hooyadii baa ka mid ah oo qoyskiisa ka mid ah oo qabiilkiisa ka mid ah oo qarankiisa ka mid ah intaaba sidoo daweyn lahaa isaga laga rabaa cudurdaarna waxaan doonayaa inuu ay u noqoto bal xaaladiisna caafimaad iyo cilaaj iyo markuu isagu afkiisa ka hadlo af joogo looma adeego marka xaaladda cilaajku ay u dhamaato anaa ballan ka qaaday inuu halka soo fadhiiso waxaan kaloo ballan ka qaaday inuu qarankiisa soo dhiibo oo uu qoorta u soo dhigto oo haddii jeeda lagaga jarayo iyo haddii xabad lagaga jarayo iyo haddii la cafinayo iyo haddii toobadkeenka laga aqbalayo iyo haddii qarankiisa u shaqaynayo iyo hadduu isagu suu doonaa yeelay inaga waxa waajib inuu ah in bartooyinku uu bukaayo una soo duceyno faatixada la soo martaan inuu ilaahay caafiyo aad baad mahadsantihiin